waxaa jiri jiray laba wiil oo saaxiibo ah waxaana lagu kala magacaabi jiray Axmed iyo Aways. Axmed saaxiibkiisa ayuu wacay wuxuuna ku yiri saaxiib hooyaday ayaa xanuunsanaysa aniguna ma haysto qiimaha daawada ee saaxiib ma i caawin kartaa. Aways wuxuu ugu jawaabay saaxiibkiisa dhib ma lahan saaxiib waxaad i soo wacdaa salaada casir kadib. balantii markay gaadhay buu wacay laakiin nasiib darro taleefankiisii waa uu xirnaa. marar badan ayuu ku celiyay taleefankii laakiin taleefanka saaxiibkiisa waa uu dansanaa. haddana aad buu u wacayay ilaa uu ka qoostay. wuxuu bilaabay inuu raadiyo qof amaahiya qiimaha daawada hooyadii laakiin nasiib darro cid amaahaysaa ma helin. Axmed waxa uu dareemay in adduunka oo dhan uu ku cidhiidhiyoobay waxa uuna aad u murugooday xanuunka hooyadii iyo inuusan caawin karin. balse murugadiisa ugu weyn waxay ahayd sida saaxiibkiisa Aways uu hoojiyay. Axmed waxa uu garan waayay waxa uu sameeyo. waxa uu dib ugu noqday gurigii asagoo aad u niyad jabsan. wuxuu arkay hooyadii oo hurda oo wejigeeda nasasho ka muuqda oo ay agtaalo bac daawadii loo baahnaa ku jirto. farxad iyo amakaag baa kala jiiday. waxa uu u tegay walaashii wuxuuna weydiiyey qofka daawada keenay. waxay ku tiri saaxiibkaaga Aways ayaa yimid asaga ayaana keenay daawada. wax yar ka hor ayuuna halkan ka tegey. farxad buu la qoslay. ilma ayaa indhihiisii soo istaagtay. gurigii ayuu ka soo orday isagoo raadinaya saaxiibkiisa Aways ilaa uu ka arkay. Axmed baa ku yidhi waan ku soo wacayay ilaa galabtii taleefankaagana waa uu xidhnaa maxaa kugu dhacay. saaxiibkiis Aways ayaa ugu jawaabay waan iibiyey taleefankaygii lacagtiina waxaan ku soo gaday daawada hooyo. saaxiibka wanaagsan waa midka ku hura xoolihiisa.